Waa tahay daawadayaal, waa mar kale iyo Baahi News. Warbixinadii ugu waaweynaa saacadihiinu kasoo gudubnay ayaan isla qiimeynaynaa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay in weerarada ka dhacaya marinada badda cas ay tahay in la joojiyo, haddii kale tallaabo caalami ah laga qaadi doono. Cameron waxa uu ka gaabsaday inuu caddeeyo tallaabada uu Ingiriiska qaadi doono, balse waxa uu yidhi tani waa sharci darro, ma ahan in la sameeyo ama saameyn loo geysto Gaza, ma ahan in Israel sidoo kale arrintan lagu dhibaateeyo. Tani waxay ku saabsan tahay xorriyadda dhinaca badda, buu yidhi. Tani waxay ku saabsan tahay awoodda maraakiibta ay ku qaadi karaan shixnadahooda. Sidoo kale waxa uu yidhi saxafiyiinta marar safar ay ku tageen deegaanadaasi, waxa uu isagu sheegay dhaqaalaha adduunka, dhaqaale kasta waa uu dhibi doonaa haddii maraakiibtu ay kusii socdaan weerarka sida sharci darrada oo aan la aqbali karin. Waxaa loo baahan yahay in la joojiyo weeraradan, haddii kale tallaabo ayaa la qaadayaa, buu yidhi. Kadib weerar socday 40 saacadood, ciidamada Israel ayaa isaga baxay xerada qaxootiga ee Nuur Shamsi ee Tulkarem, oo ah dhulka la haysto ee daanta galbeed. Boqolaal rag oo Falastiiniyiin ah ayaa la xiray oo su'aalo la weydiiyey. Ugu yaraan 13 qof ayaa burbur dhanka lafaha soo gaaray kadib markii ay garaaceen ama ay jirdileen askarta. Dhinaca kale, guutooyinka Qassam ayaa sheegay inay beegsadeen 2 taangi oo nooca loo yaqaano Merkava oo ay la socdeen Al-Yaasiin. 105 madfac oo ku yaala deegaanada Mahata iyo Katiba ee Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ay kula beegsadeen taangiyadaasi. Kooxdan ayaa sidoo kale sheegtay inay qarxiyeen qalabka lidka ku ah dadka ee ay hagaan ciidamada Israel oo ku sugnaa dhismo ku yaala Mulqaraq ee bartamaha marinka Gaza. Guutooyinka Qassam waxa ay sheegeen in dagaalyanadooda ay ku qarxiyeen wax aad u qarxa oo ka dhan ciidanka lugta Israel oo guri ku sugnaa xerada qaxootiga ee Bureij. Dagaalyanada ayaa sidoo kale beegsaday isku imaatin ay ku sugnaayeen gaadiidka dagaalka iyo askarta Israel oo lagu garaacay madaafiic culus. Dhanka guutooyinka Al-Qudus, garabka hubeysan ee kooxdaasi ayaa sheegtay in ay la beegsadeen 2 baabuur oo kuwa dagaalka oo ay Israel leedahay madaafiic kala duwan bariga Bureij. Bal wixii kasoo kordho warbixintaasi waanu isla eegi doonaa haddii Allaha awoodda laga helo. Bal markaana aynu eegno faalo yar oo kooban oo ku saabsan haddaba tallaabada argudashada ee ay ku hanjabeen ururka Xisbullah. Mowjado cabsi leh ayaa dul hoganaya Lubnaan iyo dalalka Ingiriiska la ah kadib markii dilkii hogaamiyihii labaad ee Xamaas oo lagu dilay gudaha caasimadda Lubnaan ee Beirut. Al-Caruuri ayaa ku dhintay qarax ka dhacay koonfurta caasimadda Lubnaan, weerar ay fulisay diyaaradda aan duuliyaha lahayn oo Israel si weyn loogu eedeeyay oo ah dal aan sheegan mas'uuliyadda weerarka. Isagoo ahaa ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas, Al-Caruuri waxa uu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee ka tirsan hoggaanka kooxda Falastiiniyiinta. Horeyba xiisadda u dhaxaysa Israel iyo ururka hubeysan Xisbullah ay ahayd mid sii kordhaysay tan iyo bilowgii colaadda Gaza. Waxaa kale oo jirtay isku dhacyo ciidan oo u dhexeeya ciidamada Israel iyo kuwa Xisbullah oo ka dhacayay xuduudda Lubnaan ee Israel. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa khudbadda u jeediyay waxa uu ku tilmaamay in dilka Al-Caruuri uu yahay mid halis ah, isagoo xusay in tani tahay dhacdii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2006 xilligaasi oo socday dagaal dhexmaray Xisbullah iyo Israel. Nasrallah oo khudbadiisa ku magac dhabay wasiirka difaaca Israel ayaa yidhi ma awoodo in uu gaaro hadafkiisa dagaal, kama cabsanayno dagaal. Kuwa ku fikiraya in ay nala dagaalamaan way ka shalaayi doonaan. Dagaalka nalala galay waxa uu ku kici doonaa qiimo aad u badan, buu yidhi. Waxaa kale oo intaa ku daray in haddii Israel ay dagaal ku qaado Lubnaan aysan jiri doonin xad ama xeer dagaalka Xisbullah. Isagoo sii hadlayay ayuu hogaamiyaha ururka Xisbullah ku sheegay in dhacdada ka dhacday Lubnaan ay ahayd dembi aysan dhici doonin in aan loo ciqaab mudan. Ra-iisul wasaaraha Lubnaan ayaa ku eedeeyay Israel in ay isku dayeyso inay furto jid uu waddankiisa dagaal goboleed ku galo, ama iyagu si toosa uma aysan xaqiijinin mana beeninin inay disho Al-Caruuri, balse afhayeen u hadlay dowladda Israel ayaa sheegay in ay ahayd weerar ka dhan ah hogaamiyaha Xamaas. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa tan iyo bishii November sheegayay inuu amar ku bixiyay in hay-adaha Mossad ee adeegga sirdoonka dibadda ay tallaabo ka qaadayso hogaamiyaasha Xamaas meel kasta oo ay joogaan. Muuqaal si weyn loogu wareejiyay baraha bulshada ay muujinayay khudbad uu jeediyay bishii Agoosto ee sanadka tagay hogaamiyaha Xisbullah, kaasi oo sheegay
in dil kasta oo ka dhaca dhulka Lubnaan ee lala beegsado Lubnaan, Falastiin, Iiraan ama Suuriya waxa hubaal ah inuu yeelan doono falcelin xooggan looma dulqaadan karo buu yidhi. Nasrallah ayaa hadal uu jeediyey 14 Agoosto sanadii 2009 ku bilaabay khudbad uu kula hadlayay Israa'iiliyiinta isagoo yidhi: haddii aad duqeysaan Beyruut ama xaafadaha koonfureed, waxaan duqeyn doonaa Tel Aviv. Sida ay soo sheegayso wariyaha BBC-da ee Qudus, ciidamada Israa'iil ayaa kordhiyey weerarada dhanka cirka oo ay ku qaadayaan xuduudda Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay u diyaargaroobeen dhammaan xaaladahan oo dhan, waxayna xaqiijiyeen difaacooda cirka ee waqooyiga dalka, iyagoo ka walwal qaba in Xisbullah ay adeegsato gantaalada riddada dheer. Dhowr warbaahin oo Israa'iil ayaa tilmaamaya in Saalax al-Caruuri uu ku jiray meesha ugu sarreysa liiska aadka loo doondoonayay Israa'iil, laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in dhimashadiisa ay u badan tahay in ay saameyn xun ku yeelan doonto dadaalada lagu soo furanayo in ka badan 100 Israa'iiliyiin oo ay Xamaas qafaalatay. Al-Caruuri ayaa la rumaysan yahay in uu fure u ahaa wadahadallada dadban oo ay garwadeen ka ahayeen Qatar iyo Masar si loo sii daayo lahaystayaasha Israa'iil. Dhammaan falalkan argoosiga ah ee Xamaas walwalka ugu badan waa kan lahaystayaasha, ayuu lagu qoray wargeys ka soo baxo dalkaasi. Qaraxyo mataana ah oo ka dhacay dalkaasi Iiraan ayaa saacadihii ugu dambeeyay aada loo hadalhayay. Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil iyo Mareykanka waxay ku eedeysay in ay ka dambeeyeen qaraxyadaasi, hase yeeshee afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo ku gacan saaray eedeynta ku lug lahaanshaha Mareykanka ee qaraxaasi. Arrintaasi uu ku tilmaamay wax lagu qoslo, isagoo dhanka kalena sheegay in aysan jirin wax muujinaya in Israa'iil ay mas'uul ka tahay weeraradaasi. Qaasim Suleymaani waxa uu caan ka ah gudaha dalalka Iiraan, Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo ah dalal ay ku nool yihiin dadka haysta madhabta Shiicada, waxaana aad u xurmeyn jiray hogaamiyayaasha dalka Iiraan iyo dadka Shiicada. Ciidanka uu madax ka ahaa ee Qudus waxay ahaayeen ciidamo qaabilsan howlgallada dibadda, gaar ahaan dalalka Suuriya, Ciraaq iyo Yemen, waxayna si toos ah uga amar qaadan jireen hogaamiyaha Iiraan. wixii warbixintaasi kusoo kordho aan u eegi doonaa, iyana warbixinta wax ayay ka qorayeen faallooyin ku saabsan amuurahaasi saacadihii aynu kasoo gudubnay. Arrinta la xidhiidha dagaalka Gaza, sida wasaaradda caafimaadka iyo dowladdaasi Falastiin waxyaabihii inta badan ay ku qorayeen. Haddii isha aynu marino tirada dadka imika saacadihii aynu kasoo gudubnay la weeraray ee waxyeeladu ay soo gaadhay waxay gaarayaan 125 qof, halka 318 qofood iyaguna dhaawac uu soo gaaray. Dhanka kale waxaa markaasi jireen tiro dad ah oo iyaguna weerarada kala duwan ay qaadayaan ciidamada Israa'iil iyaguna waxyeelo u geystay. Tirada guud waxay gaaraysaa 22,438 qofood, halka dhimashadu ay dhan tahay 57,614. wixii warbixintaasi kusoo kordho waanu eegi doonaa. iyana ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna ku sii siqaya qaybo ka mid ah marinka Gaza, halkaasi oo si xadgudub ah ay iyaguna ula wareegayaan ciidamadooda iyo gawaarida taangiyada halkaasi ay ku sii siqayaan, iyadoo ay jireen duqeymo iyo weeraro kala duwan oo ay ka fulinayeen qaybo ka mid ah marinka Gaza 24 saacadood aynu kasoo gudubnay. waxaana la sheegayay in dhimasho 25 qof oo Falastiiniyiin ah iyagu ay soo tabinayeen hay'adaha caafimaadka iyo warbaahinta ee dalkaasi. wuxuu kusoo kordho halkan ayaad ka dhugan doontaan.